بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن صاحب يال كسر هذا برنامجka maxaa ka cusub baraha bulshada oo aad ka daawataan warbaahinta galsan xarunteeda dhexe ee magaalada Muqdisho. waxaanu ku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee taagan ama ka taagan baraha bulshada. qodobadaan idin kugu soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya saaxiib yaal sarkaal nista ka tirsan oo ku geeriyooday dagaal ama isku horimaad ka dhacay deegaano hoostaga degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. dagaalamayaal ka tirsan shabaab iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku dagaalameen inta u dhaxaysa Masagawa iyo Ceeldheer. waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa xilkii laga qaaday ama xilka qaadis lagu sameeyay taliyada xabsiga dhexe ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed. sidoo kale aad maqli doontaan muwaadin Soomaaliyeed oo dil iyo sidoo kale boob hantiyadeed loogu geystay wadanka Koonfur Afrika halkaas oo ay dadka Soomaaliyeed ku badan yihiin. waxa kale sidoo kale ka marneen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ku safray wadada u dhaxaysa Afmadow iyo Kismaayo oo dhawaan isku furis ay ku sameeyeen ciidanka dawladda. qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin wararkii caalamka Israel oo kumanaan shacab ah ku leeynaysa wili marinka Gaza ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena oo intaasi ka faahfaahsan. waxaynu ku bilaabaynaa saaxiibayaal wararka gudaha. ciidamo ka tirsan kuwa nisa iyo kuwa dadka deegaanka ayay wararku sheegayaan inay ku dagaalameen deegaano hoostaga degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. deegaan hoostaga Caabudwaaq isla markaana u dhaxeeya Caabudwaaq iyo sidoo kale ballanbal waxaa la tilmaamay in laba gaari oo kuwa xamuulka qaada ah oo la tilmaamay inay hub saarnaayeen kana yimid dhinaca wadanka Itoobiya halkaas ay marayeen, laakiin dadka deegaanka ay isku qabsadeen iyo ciidamada nisa in gaadiidkan aanan la gudbin. laakiin ciidamada nisa ayaana la tilmaamay in ay doonayeen inay galbiyaan gaadiidkan oo kusii wajahnaa sida wararku ay xaqiijinayaan koonfurta gobolka Mudug. dagaal ayaa halkaasi ka dhacay oo u dhaxeeyay ciidamada nisa iyo ciidamada dadka deegaanka ah. waxaana la tilmaamaya inuu ku geeriyooday Allah u naxariistee sarkaal magaciisa lagu sheegay Faisal Nuur Salaad oo kamid ah saraakiisha ugu firfircoon ee maamulka Galmudug, iyada oo sidoo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen qaar kamid ah dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda. waxaa laga xusi karaa Bashiir Suuley nin lagu magacaabo oo askarta ciidanka dawladda la sheegay inuu ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Walambo oo iyagana isla ciidanka dawladda ka tirsanaa. khasaare kale ayaa jira oo ama jiri kara oo intaasi ka badan maadaama dadka qaar dhaawacyo ay yihiin loona qaaday degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale degmada Ballanbal. waxaana dagaalku xilligan uu yahay mid qaboobay oo gaadiidkana mid kamid ah ciidamadii deegaanka ayaa gacanta ku dhigay oo hubkii kala degay, halka mid kalena ciidamada nisa ay gacanta ku hayaan oo wax dhibaato ah aysan gaarin. sidoo kalena la filayo in iyaga oo badqaba ay gaaraan halkii loo waday. gaadiidkan waxaa la tilmaamay inay hub saaran yihiin, dadka deegaankana waxay xaqiijiyeen in aanan la gudbi karin halkaas oo mid kamid ah beelaha ku dagaalamaya koonfurta gobolka Mudug loo waday, laakiin ilaa iyo hadda wax war ah lama hayo oo loo hayo ma jirto. wararka gobolka Galgaduud intaaynu ka bixin, Waniile waa deegaan u dhaxeeya Masagawa iyo Ceeldheer waxaana ku sugan ciidan ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. dagaalamayaal ka tirsan shabaab ayaana la tilmaamay in halkaas isku urursi ay sameynayeen, laakiin ay ka hortageen ciidanka dawladda. dagaal xoogan oo khasaare kala duwan dhaliyay ayaana halkaasi ka dhacay oo u dhaxeeyay dagaalamayaashii ka tirsanaa shabaabku iyo ciidankii dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka tirsanaa. waxaa la tilmaamay hubla noocyo kala duwan in la isku adeegsaday dhinaca dawladda. ilaa iyo hadda wax khasaare ah oo ay sheegeen saraakiisha dawladda ma jirto, laakiin waxaa la tilmaamayaa in duqeymo dhinaca cirka ah iyo howlgal dhinaca dhulka ah lagu galay saldhigyo ay shabaabku ku lahaayeen Waniile oo ay kusoo wajahnaayeen saldhigyo ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanada u dhaxeeya Masagawa iyo sidoo kale Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. wixii khasaare ah ee saaxiibayaal dagaalkaasi ka dhashana barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaaye. xabsiga dhexe ee Xamar dhawaan waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay koox maxaabiis ah oo 4 gaarayay oo hub uu gacanta u galay iyo sidoo kale ciidanka ilaalada xabsiga ee ciidamada sida gaarka u ilaaliya waa maxaabiista ee ciidanka asluubta loo yaqaano. arrintaas ilaa iyo hadda cid dabagal ku sameysay ma jirto, laakiin guddi ayaa loo saaray nin la sheegay in uu isagu furihii ama furahaye u ahaa xabsiga dhexe oo halkaas maxaabiistu ay ku dileen. marka laga reebo wax kale oo khasaare ah oo ka dhashay ma jiro. dagaalkaas oo maxaabiistii 4 ahayd ayaa halkaas lagu wada toogtay, ciidamada qaarna dhaawacyo ayaa soo gaaray oo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ka tirsan. xilkii ayaa laga qaaday taliyihii xabsiga dhexe si ku meel gaar ah ayaana xilka looga qaaday. Mahad Cabdiraxmaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaana xilka qaadistaas sameeyay. wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa. Koonfur Afrika muwaadin Soomaaliyeed ayaa dil loogu geystay iyadoo dukaan uu markaasi ganacsi oo halkaasi ku lahaana boob lagu sameeyay. Koonfur Afrika maalmihii ugu dambeeyay dilalka loo geysanay muwaadiniinta Soomaaliyeed waa ay ka nasahneed oo waliba waa ay ka deganeed sidii hore ambilooyinkii la soo dhaafay,
laakiin muwaadinkan oo magaciisa lagu soo koobay Guuleed waxaa la tilmaamay in goobtiisa ganacsi lagu dhex dilay burcadanna ay isku dayeen in ay guud ahaanba hantidii tiilay dukaanka ay qaateen laakiin qayb kamid ah ay ka qaateen oo gaari halkaasi ka agdhawaa ay ku qaateen hanti. waxaa sidoo kale goobta si dirqi ah uga badbaaday milkiilihii goobta lahaa ama goobtaasi ganacsi waxaana isagana la tilmaamayaa in wax dhaawac aysan gaarin laakiin burcadda ay ka qaateen halkaas hantidii tiilay qayb kamid ah. Allah u naxariisto muwaadinkaasi wuxuu kusoo kordhay saaxiibayaal isla dilkaas iyo burcadaasi oo iyadana dabagal lagu hayo wuxuu kusoo kordhaa barnaamijyada wararkeena dambe iyo inta aynu ku guda jirno barnaamijkeena ayaynu kugu soo gudbin doonaa. Afmadow aan eedno iyo Kismaayo wadadaas maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgal xoogan oo u dhaxeeyay ama ay wadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee commandoska Gorgor, Nisa iyo qaybo kamid ah ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland. halkaas waxa ay ciidamadu kula wareegeen deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi. wadada Afmadow iyo Kismaayo u dhaxaysa ayaa kamid ah meelaha ciidamadu ay la wareegeen oo xilligan ammaankeedu ay xaqiijinayaan. mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi Galmudug gaar ahaan waa Jubbaland aan idhaahday gaar ahaanna gudoomiyaha degmada Afmadow iyo xubno kale oo ay wehelinayeen ayaa Kismaayo ka baxay kadibna aaday Afmadow sidoo kalena ku soo laabtay Afmadow ama ka soo laabtay kuna soo laabtay Kismaayo. waxaan la tilmaamayaa in wadadaas xilligan ammaankeeda ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo iyo kuwa Afmadow intaba kuwa dawladana ay howlgaladooda hore u sii wataan oo ay doonayaan inay mar kale dib ula wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland. wararkii gudaha ayaan intaas kaga gudbaynaa saaxiibayaal. markana caalamka haddii aynu eegno Israel waxa ay abaalmarinaysaa ciidamadeeda ama saraakiisheeda dhinaca cirka ee dagaalka kula jira Hamas sidoo kalena duqeymahaas ay ku laaynayso dadka reer Falastiin gaar ahaan danta galbeed ee Gaza lagu magacaabo 90 qofood dad ku dhow ayaa halkaasi lagu dilay maalmihii la soo dhaafay. 80 kamid ah waa caruur sida ay wararku sheegayaan. dadka waaweynna tiradooda ilaa iyo hadda tira ama qiyaas ma jirto. dhimashada iyo dhaawaca waxaa dadku marba marka kasii dambeysay ay dareemayaan culaysyo aad u xoogan. waxaana la tilmaamayaa Israel in qayb kamid ah ciidamadooda ay kala baxday danta galbeed oo la soo warinayo in mar kale ay dib u soo abaabulayso dagaalka. Hamasna waxay wadaan weerarada joogtada ah ee ay ku qaadayaan gudaha dhinaca wadanka Israel. xaaladda ayaana cakiran saaxiibayaal. dhinaca Trumpna waxaa la soo warinayaa in ilaa iyo hadda waxa loo toogtay aanan la xaqiijin misna la sheegi karin laakiin wiil yar oo arday ah oo weliba 20 jir ah uu toogtay isagiina la toogtay. waxaana jira in xilligan dhaawaca lagu dabiibayo mid kamid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha gobolkii uu isagu taageerayaashiisa kula hadlayay ee wadanka Mareykanka. marka la fiiriyo 4 madaxweyne ayaa la toogtay oo si toos ah loo toogtay oo markaasi goobta ku geeriyooday. Trumpna waxa uu noqonayaa madaxweynihii labaad ee halkaasi lagu dhaawacay oo toogasho la damacsan laakiin ka badbaaday. wuxuu kusoo kordhay saaxiibayaal umurahani oo idil barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa war hor leh iyo sidoo kale wararkii cusubba waxaad si toos ah kala socon doontaan xarunteena Muqdisho ee warbaahinta galsan. intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo barnaamijka maxaa ka cusub baraha bulshada. anigu Cumar Guuxa soo saar halkan idin kala socodsiinay dhinaca farsamada kaamiradana waa saaxiibkay Saacid Karaama. intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga nabadgelyo.